sayid maxamed cabdullaahi soomaali meel walbay wax walbay ku kala qaybsantay maanta hero ma jiro nin la dhihi karo this is our hero ma jiro nin herogiisii dee waa la isku wada haystaa wix bowqa taagan sayidku dee weji fiicanna waa leeyahay weji xunna waa leeyahay laba wejiyuuba leeyahay baana doodayga waa midigii bidix kee qaadanaya marka waxaa ku ron labadaba inaa qaadid midigna ka soo qaado bidixna ka qaado dhexda dhig sayidka waxaa dhahdaa waxaana waa ku fiicnaa waxaana waa ku xumaa sayid maxamed cabdullahi yes waa ku fiicnaa inuu yahay nin u istaagay soomaaliya oo reer miyi oo badow ah inuu yidhaahdo britishka inuu challenge garayo uu yidhahdo no waa ku xumaa inuu qabaa'il laayo oo dadka uu gabay intuu gabiyo uu reera ku caayo ceebay ahayd laakiin waxaa saameynaya ay laftiga oran kartaa xaaladda uu joogay masiibuu dhex taagnaa iyo qabaa'il iyo balaayo laakiin dee maadaama uu caalim ahaa islaam ah oo si fiican run ahaan wax u yaqaan inuu gadaal uga istaagay eed qabiilkii waxaan isdilaya inuu u arko asaga inuu ka sarreeyo inuu caalim yahay dadna waxaan ku xaqiijiyay aniga noodkii uu qoray uu usoo qoray ingiriiska gumaysiga berbere uu diray governorka ingiriiska 9 page uu qoray markaan akhristay oo ingiriisku ay rabi eedo waa ingiriis ku turjumo waa yaabo nin waaga nool oo Soomaali ah oo 5 buug xiganayo oo cilmi ah 5 buug oo xigta soo isu daafaco waa marka Sheekh Maxamed Saalax yiri iga bax dariiqadii oo aaminsanaa saalixiya saalixi lama tiid qaa'ina tahay umada dhameeyay sheekhiisa dhahay sheekh ma ka jooga loogu tagay Sheekh Maxamed Saalax warqada uu soo qoray ka bax iga tag hay sheegan aniga soo isku daafaco inuu san qaa'in ahayn 9 page oo qoray sheekh ingiriiska soo marka berbere laga sii dhoofinayo sir loo wado dhab yir sirtii uu qabtay hadday turjumeen oo library-ga colonialka dhigan oo fiiri waaba bajacaba aniga nin saas caalim saas oo inuu u ahaa maba ogeyn nin wax yaqaano ah marka dhinacaas wanaagsan waa inaan sheegnaa scholarshipkiisa dhinaciisa burtalka uu dilayo saydigiisa walaashii ninka qabay oo walaashii bariyay leedahay walaal ha iga dil inta kala dil erga u timid uu dilayo wax dhaqan Soomaali ku cusub ah erga ay u soo direen beesha Maxamed Zubeer ogaadeen waa soo ka dhashay intay la direen oo nin ka dili gaareen istagaaleen ayay erga ka daba direen 38 moogtahay intay meel isku shirqooleen sayidku xogaa wax yar oo wuxuu noqday dictator inuu wax joogo iyo wax la dhows sameeyay wax joogda la qam qof marka ogaadinka waxay dhaheen aan iska kacina ninkan haddana cusub yahay aan cunna dil marka waa loo sharay gurdumiya la yiraahdaa shirqoolka gurdumi waa raadiyay hadda markaan taga dhulkeen aan soo arka meesha dad odayaalahood loo soo tatabiyo oo yaashu u tabiyeen waa kala shaqeys marka in hal mar 100 nin warma ku dhufato si aan loo oran jufeeba la disho la subax xasuub soo warmay lagu tuur rabo nin oo hoos uga sheegay baashi dilida takamid wiir sayidii ya meeshaan lagu cun ee ka bood sayidkuna saa markuu faraskiisu fuulay lagu tuur warmay oo Abbas ma tigis lagu dilay oo jeclaa gabayowna ka tiriyay nimanka dilay inaan caafinayn u leeyahay gabaygiisa marka ergey ka daba diray 38 dhahan sayidii inaan ku qaboojinaan doonayna xal inaan ka bixinaan doonayna sayidkii waa nin caalim oo muslim oo diin yaqaan inuu daaye hal dilo yiri jaabo ku jibsaday ilaayo waxa ku jira Xuseen Dheer oo beesha soo xushay Maxamed Zubeer ugu balaaran ogaadeen soo xushay tiri Xuseen baad ku jiro qabay ina Cabdullaah Xasan waa afinaya oo la hadashay tiri iga dilin inta kala dil ninka uu ida Xuseen kama maarmay waa jeclad Xuseen buraanburna waa ka tiris kow 38 meel waa brutality falxuma waa in la xusaa